السلام عليكم دمان خيارتنا داونيسان meel kasta naga daawaneysaan soo dhawaada waynaantii nimbar la arag oo ka soo dhacday maanta waxaan joognaa magaalada in badan baan kaliya halkan soo fadhiistay iyo Naasir inkastoo kaliya u badnayn aniga Naasir badan daawo jirteen laakiin maanta khiyaar qaaliya asxaab qaaliya ayaan wada joognaa magaaladan joognaa aniga de afartan wax la sameeyay afartan wax soo daahay min raana imka saddex bilood ka soo wareegtay dhinacayga waxa fadhidana waa qurux oo iyaduna ah inaan ku nool magaalada Luton aan deganahay waa YouTuber waxaan rajeynayaa inaad booqataan YouTube-ka Nawaal Qurux oo aad subscribe u saartaan insha Allah dhankaas kalena waxa fadhida Shukri Sharaf official in badan baad iyadana YouTube-ka daawateen iyadana waxaan rajeynayaa inaad subscribe u saartaan هذا ما سنتهاي شكري موسى وهني مقع مسكين لقى معها هو وريا قالي ما المولى وقبتها الله يليه هم شو قرنا أنا الحمرة أتكلم هذا الكون مرسكوية لا مفوقة الله يليه وعين قوي عندي أفرح حمر كيف برت عوجة هذا وكتور صورته لا يقوم حمل قرارته أنت سواهر وهرسر مركا وما شاء الله عند غير مقصود سومالي ذا كلبه waxaan rajeynayaa inaad shukri ku xasuustaan hoon Afrika waayo soo dhawaada dhamaantiin hees waxa jirtay haadi jirtay ana xasuusta shukri aniga xoogaan u maleynaa wax yar idin kaga badanahay hoon Afrika waxa shukri dayax weeye hees abaab ii dhahayba barnaamij fi cali wada jirtay salaamaha iyo barnaamijyo badan oo ku xasuustaa shukri شكري هرهرنا واي روايدي سبن ما برجي نبضة أنتي دولة نمط صوماليا أنا دعين قاركين ما بطلنا قارن عيال استقهاين لكن أنا تينيجر يعني waxaan nasiib u yeeshay inaan fanaaniinta Soomaaliyeed ka mid noqdo xilligii nabadda inta siyaad barre u joogay laakiin hadda waa laga gaboobay ma ogtahay marka hadda waa laga diga rogtay alxamdulillah ala ay xaal laakiin maxay ahaday waana iska shaqooyin badnaa oo dhowr meel oo kale ka soo shaqeeyay safaaradii bahda maxay ahaday waa kamid ahaa wariyaasha welina waa kamid ahaa waa lagu tiriyaa YouTube إلى هاي برتاد YouTube شيء ترسل بريان هردو والله ما هو هردو ما يقاس وحن مقل جري وقتها مركا حمر جوجني لها سكوك قرآنك قرآنك أيوة قرآن كساقدة محل يجري لوح جيف وقف كامل يجري كساقدة يهردي عواملنا لوح جيف اللي يجري وقتها أنا وحي يوتيوب جيف وطافن يوتيوب كي وعلى يجري شكر موسى تالنتي channel إن شاء الله مرة واسوق عناية لكن وأيضا مرت مدة دير هذا إلى 6 بلود كبلان 6 بلود كله أيانا مالنا كسو موقنين إن شاء الله واسوق نقدونا هدي اللي يراهدو هذا شكري محمد درس هذا هنا سودو ودو هاي الحمد وحالنا هاي هوي ومتقوى متقوى ملوها سيد عرفت وحالها هوي أنت مستري كسو دو هو يعني ماذا حمدي وما سنتوقع experience بدنا لسيناي ولا شيء ما شاء الله 10 بدنا ويكدرت ولا لا تليا حمدي لا تلياش عادي وبديهين نوال أنا أصحابته حمدة وسلامتهين حمدنا حلينا هاي خويني ماذا كسر دواو بيبي ديرتي تقوانا علينا بيبي صوبر بارة ومش اسمع عارفين ولا رحمن aad ma santii maanta aniga haweenimada lagu soo dhaweynayay halkan casmadna lagu sameeyay aad ma santii Shukri iyo Nawaal oo halkan lagu casmay maanta khayr Allah idin siiyo Shukri Muuse ciidana aniga la casmeeyaashan ku jiray aniga wax ma casmin wali aad baan idinka mahad celinay waqtigiina qaaliga ah ee aad noo soo hurteen aad waliba qaybta YouTube-kana aad nagala qayb qaadanaysaan idinkoo suuqaya daray asmaadi iyo barnaamijkanba aad ba maasantihiin hooynimada lagu soo dhaweynaya dabcan waxaan marka hore u ducaynaynaa qof kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Muslim oo jecel inuu mar uu noqdo hooyo ama aabo inuu Ilaahay awlaad qaybta uu ku arsaaqo oo aanu ku dhibtoonin وين دعينا مركو هري دكنا أمين تقصو بدية كل أنهم بدريمي كريه iyo dadka ila midka ba dareemi karaya dibka ay leedahay oo marka aan doonaysid inaad hooyo noqoto ama aad noqotid laakiin ay caqabado kugu yar yimaadaan
bulshada kugu xeeranna ay runtii ku raado haye maxaa soo kordhay marka waanu ducaynaynaa marka hore marxibtadana ana lagu soo dhaweynaya waxa la leeyahay bal adiga iyo taqwa ku soo dhawaada dunidan quruxda badan waa idinka mahad celinaynaa intaasi kadib waxaan jeclaan lahaa bal mawduuc yaroo kooban oo dhowr iyo 10 minute imika 5 minute sii maraynaaye inaanu ku falanqayno qalliinka oo muddooyinkan dambe kusoo batay gabdhaha Soomaaliyeed inay ku dhalaan waagii hore way aynu naqaanay bariismaadkii gabdhuhu inta badan si normal ay u dhali jireen laakiin inkastoo ay dhinaca kalena caqabado jireen oo ahayd in umul aroor oo kale uu aad u badnaayo oo ay hooyooyinku aad u dhiman jireen waagii hore intii ku dhimatay Ilaahay u naxariistay laakiin waqtigan dambe waxaa soo batay qalliinkii anigu su'aashayda la soo weydiiyay inta badan oo lagu yiraahdo ma qalliin baad ku dhashay mise normal baad u dhashay xagga dambe ayaan ka dhiganayaa baan jawaabteeda ku bixinaya laakiin bal kulaaniya shukriya baa kamid ah akhyaarta waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku bilaabo shukri muuse shukriye bal maxaad ka aaminsan tahay in muddooyinkan dambe hooyooyinka lagu qalayo ilmaha ay soo bateen maxaa u soo bat leedahay horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu baxda xamda kala soco maxay channelkeeda waan idin salaamay marka hore xamda waa sidaa u tiri hooyo cusub aa tahay hooyooyinka Soomaaliyeed kusoo biirtay markaa kusoo dhawow hooyanimada insha Allah awlaad baariyaho badanna Allah ku siiyo biidnillah inta kale ka maqan tahana sidoo kaleeto haddaan su-aashii u guda galo waxaan isleeyahay horta xamdaay marka hore ma jiri jirin hooyooyinka sida hadda loo qalo oo kale ma jiri jirin inta badan si caadi ah u dhali jireen laakiin qolo umul aroor ma jira anaga umul raacashan laakiin waa isla meeshi oo daqaalis iyo jiidis isla gurigeyn waaye marka hooyooyin badan oo umul raaca waa jireen oo sababtana aan la garanaynin laakiin aniga waxaan isleeyahay haddaan si wanaagsan u sii fiiriyo waxa kaliya oo ku soo saaciday oo qalliinka badiyay waxa waay technology-yadan hore u martay oo aan markii hore la haysanin oo aan la kala garanayn qofkana inuu qalliin u baahan yahay qalliin uu ku dhali karo iyo inuu caadi u dhali karo ma kala baxsanaan jirin berigii hore qofkii ilaahay uu ka keenay caadi u dhali jiray kii ay maaragtay ay noqon weyso qof dadka qalliinka ku dhala ahna haddaaba la fahmaynin inuu marka horeba in qalliin uu ku dhalo uu u baahan yahay hadda sida ilaahay u dhigu noqon jiray uu iska dhiman jiray iska umul aroorkaas uu geli jiray marka hadda horta waxa ilaahay mahadiisa gabdhaha umul raacda inay aad u yar yihiin oo la kala badbaadiyo hooyada iyo ilmaha taasna waa ilaahay mahadiis laakiin dhanka kale waxa aad noogu badan ilmaha lagu qalo gabdhaha ilmaha lagu qalaa nagu badan taasna waxaan isleeyahay mar la yiraahdo biyaha dhamaaday oo waqtigii caloosha ilmuhu uu ku jiraya saa'id noqotay qof la yiraahdo miskahaaga yar oo ma dhali kartid ilaa laga soo jeexo qofba waxba loo sababeeyaa berigii hore waxaas lama kala garan jirin ninka ilaahay soo dhaafin waa soo dhaafi jirtay kii kalena wuu ku tagi jiray ma fahamtay marka taana waa ilaahay maadis runtii tallaabada hore ee teknolojiyada u qaaday ayaan isleeyahay ayaa sababta dabisay in dadka lagu qalo aad iyo aad baa shukri umahadsan tahay ma laga yaabaa Soomaaliya oo kaleeto qalliinka lacag baa laga sameeyaa oo hooyada markii normal u dhalayso ama ay caadi u dhalaysay marka la qalayo farqi baa u dhaxeeya xagga dhaqaalaha oo kaleeto $500 baa lagu qalaa ugu yaraan gabadha marka ay dhalayso oo qalliin ku dhalayso ma laga yaabaa in dhakhaatiirta qaarkood iyaga oo ka eegaya dhanka dhaqaalaha inay uga faa'iidaystaan xagga maadaama imika Soomaaliya kusoo batay qalliin horta haddaan Soomaalina waa iswada tuhunnaa ma fahamtay tuhumadu way nagu badan tahay Soomaali kaliya ma aha waa geeska Afrika oo dhan aniga hadda inta aan ka arkay Afrikada kalena inay nala qabto waa suuragal geeska Afrika oo dhan hadda qalliinku waa ku badan yahay meel walbana waxaa loo aaneeyaa dhakhaatiirtu inay lacag doonayaan maadaama qalliinku uu ka qofka haddii operation la gelinayo ay ka lacag badan tahay qof caadi u dhalay waxaa la yiraahdaa mar walba lacag ay rabaan gabdhaha waxay u dhaawacaan oo ay u qalaan waa maxay ahayd lacag aawadeed xataa wadamada kale ee nagu xeeran sidaas lagu eedeeyaa dhakhaatiirta dalkeenina waa la mid oo sidaas la yiraahdaa wallahi Allahu a'lam way dhici kartaa sinna maxay ahayd maadaama hadda ay yar tahay gabdhaha umul raacda waxaan isleeyahay waxaan waa jiri jireen waan la garan jirin Allah ilaahay aad iyo aad ma santahay shukri maxaa ku daraysaa adiga runtii shukri inta sheegi lahaa shukri sheegtay walaasheen runtii meel seeta la loo leeyahay la yiri
Soomaaliya oo kale gabadha markay uurka leedahay 9 bil dhameysato ama bishii ugu dambeysay ay ku jirto waxaa laga yaabaa inay duruufo dhaqaale darteed aynan check up samaynin mararka qaar inaan la garan karin inay ilmaheedu caadi u dhali karto qofkeeda la kontroolin laakiin halkan oo kale waa la kontroolaa waa la ogaadaa inkastoo dunidu hadda horumartay qalab yaallo wadankii Soomaaliya ama meel walba Soomaaliya kamid ah dhibaatada ugu weyn markii waa la qalaa la yiraahdo qofka Soomaaliya joogo wuxuu fursad u haystaa inuu diidi karo balse halkani lama diidi karo aniga oo kale gabadheeda orod waxaan ku dhalay amaliya ama operation C-section markii waxaan damcay anigoo ra'yi ka haysan anigoo noloshii iyo wixii ugu cusub tahay markaan idin la ima qalay maxaa dhac miyaanan caadi u dhali karin waxaa la igu yiri ma dhali kartid caadi markaa waxaa igu kacsanaa dhikarka urkaan yeeshay labadii ugu dambeysay marka dhakhtarkii wuxuu igu yiri haddii aad diidid warqadaa la ii keenay warqadan saxiix hooyaday ila joogtay markaas marka waxaan ku dhahay maxaa dhacay maxaan u saxiixayaa waxaa la igu dhahay haddaad diidid oo ilmaha wax gaaraan adigaa ka mas-uul marka sharcigii iyo naftaydii iyo ilmahan u baqay odagayga markaas ma imaan karin shaqay waxbuu ku jiray marka waa la hadlay Cabdullaahi Sasal ilayhaan dhahay marka waqtigii la ii qabtayna waxaan kasoo hormaray qiyaastii week camal marka waan ogolaaday ilaahay baan baryay inuu ma aragtay igu guuleeyo waa dareemi kartaa qof ugu bax waa la qalaa la yiri cabsida ay leedahay alxamdulillah laakiin ilmahayga kale waxaan u dhalay si normal ah ما شاء الله إلهي المها هو بركة عادي أدب ما صنتهاي نوال مركز قبل السوق قاعد حد كان مسنتهاي قلين كان كستعدوا أنا قلين كل قلين هذا أنا حد كان مسنتها والله يرون أنتي هرت قلين كا ودمضان نك عفمات كان طبعا خبير بضطع هي أنا ودمضان هرت قربها سيد شغلي بهذا واجسي وحاجروا لو كير بدن ولسينا هو يدا إنه كمركي هاي 3 bilood iskaana loo diraayaa dhiigag badan aa jiro la qaadayo lagu baarayo yacni cunug intuu koray waxyaabo badan aa jirto oo wadamada Afrika ayna maaragtay badana sidaan u maleynayo ay jirin Joyce-kana waa maxaan ku dhahaye cunuga badbaadintiisa iyo hooyada badbaadinteeda badanaa la siiyaa oo ma aha yacni wax la dhahayo si Soomaaliya camal qofku diidi kara inta camal waxa siday shugri hadda sheegtay saxiixa lagu leeyahay consent sameeyaa lagu dhahayo saxiix cunugaas haduu wax gaaro inaad ka mas'uulta marka qalniinka galbeedka badanaana uu ku badan yahay hadda cunuga weyn hooyada complication jirana way jiraan qofka haduu sokorta xanuun maaragtay diabetic hayo cunuga waxa laga yaabaa inuu bararo blood pressure ka asigana sidaas camal waa complicationada ay badanaa fiiriyaan marka badanaane qof marka uu leeyahay xaaladiisu way isbedelaysaa sokoraa laga yaabaa inay kugu dhacdo awalku hanjir cholesterol laga yaabaa inuu kugu dhaco blood pressure kaada macquul inuu kaco marka ayaga badbaado adoo gaarin aankay xilligaadii waxa laga yaabaa inay kusoo hormariyaan dhahan intaan ka badan cunuga meesha kuma jiri karo wuu ku basii weynaanayaa mana noqon karto macquul inuu kafka soo maro cunugaas u weyn communicationada ee Soomaaliya ana camal hadda ayeeday way uma raacday ayeeday kale tan cunug baa caloosheeda ku dhintay labadeeda ayeeyba way dhintaan marka waxyaabahaas camal la una xariis jaanisaan ku arkamaani arkin ayeeday hooyaday dhashay markaan aniga dhalanayay ayadana sac uma raacday ayada hooyaday ayadoo baby haysta hooyadeedna duugtay marka waqti waa guul la gaaray waaye in ilmaha la badbaadiyo laakiin sida hadda ka dhawaajisay ee Soomaaliya lacagta lagu raadinayo wallahi sheekadaasi xoogaa maaragtay waxaan u arkaa in dadka laga faa'iideysanayo hooyadii waxa fiican la socdo adeen u baahneen qalab in mididaas la saaro hooyada oo lacagtaasna laga qaato marka wax xun waaye oo maaragtay u baahan maaragtay dawladda madaxa meesha ay satay iyo dawladka in wax ka qabtaan sida aan aad iyo aad u maasantahay intana daawanaysa naga raali noqdo hadii sanqar iyo codad kale oo naga baxsan naga aad maqashaan waa meel maqaayad ayaan joognaa deetana sidaas aan programkan aanu ku damacnay inaanu idinku soo gudbino aad iyo aad baan mahadsantihiin daawashadiina bal guntiga gabadhiina ku sii soconaa oo imika 40 minute baan sii maraynaa waxaan jeclaan inta badan inaan soo koobno idinkoo mahadsan oo raalli waliba bal waxaan jeclaan lahaa in aan mar kale safka saa usoo marno oo aan nidhaahno hooyadu inay inkastoo wax walba qadar yihiin haddii gabadha qalin ku dhalisay haddii normal ku dhalisay intaba laakiin hooyooyinkii hore kale marka loo eego runtii xoog bay u socon jireen shaqo badan bay qaban jireen iminka guri walba shaqaalaa jooga gabdhihi inta badan way iska joogaan way iska jiifaan socod ma jiro
noloshii gawaadhi baa jirto oo xaafadan inagu xigta ama dukaanka inoo dhowdan doonayno ama taxi baynu qaadanaa ama gaadhi baynu raacnaa halka maamooyinkii hore ay runtii dad active ahaayeen oo dee gurigooda ka shaqaysanayo oo adeega iyagu socodku doonanaya ama lugku doonanaya socodkooda aad u badnaa marka socodkoo kaleeto loo qayb sidee ah buu ka qaataa in hooyadu ay si normal u dhasho aada u mahadsan tahay xamda socodku muhiim buu u yahay qofka bini aadanka ah jirka bini aadankana wuxuu ku dhismaa in qofka murqaha ilaahay uu siiyey iyo xibnaha ilaahay jirka uu siiyey qofka sida gacmaha lugaha inuu ka shaqaysiiyo wax walba hadday shaqadooda gabaan way xumaadaan way daciifaan marka xoog waxaa la yidhahdaa waa midi la afeeyo ama la soofeeyo oo kaleeto haddii aadan xoogaaga isticmaalin oodan shaqaynin oodan gurigaaga ka shaqaynin oodan soconin oodan wax walba samaynin fadhiidaad isu bedelaysaa marka dambe waxaa noqonaysaa qof aan koob dhulka ka qaadi karin xaqiiqatan hooyooyinkii hore soomaalida sida lagu yaqiino kartida iyo wanaagga badnaa ilmaha intay dhalaan guriga hagaajiyaan cunada sameeyaan banaanka ka keenaan hadday doonaan soo shaqeeyaan hadda waa dhif iyo qaliil walow qurbahan aan joogno meelaha ugu roonba ay tahayoo dadku ayagoo gurigoodana haysta gabdhuhu ay shaqana aadaan oo aan isleeyahay markii dalkii loo fiiriyo qurbaha la qaatay markii qurbaha hooyo ma joogto walaal ma joogo inta badan waa kaliga iyo kariinka adigiyo odagii ilmaha aad maxay ahayd isu dhasheen labadii naas oo qof walbana inuu shaqeeyo uu banaanka aado rabo caruurta in la keer gareeyo la haayo la rabo wax walba in guriga laga qabsado la rabo qurbahaba hadda haddii si loo fiiriyo dhaanta dalkii markii laga hadlaayo laakiin dalkii iyo meelahan afrikadan nagu dhow annaga dalkii ku dhow qof walbaba laba shaqaale iyo wuxuu haystaa ka badan ama mid buuba haystaa markaas wuxuu intuu lugahaas kor saarto wuxuu noqday fadhiid caadi ah qofkiioo yar baan laba shay qabsan karin waxna laba lugoodna isdib dhigi karin taasna waa cuuriyaamin naftaada aada cuuriyaamisay cholesterolka macaanka ama sonkorta pressureka waxa ugu badan oo dadka u keena waxa kamid qofka intuu cunno cunay la seexday oo aan dhaqdhaqaaqin waana ku badan markii dalka waana u badannahay moogtahay qofka waxa fiican wixii uu cunay waa shidaalka jirka uu ku shaqeeyo cunada aad cunaysaa waa shidaalka gaarigu ku shaqeynayo kale waa inaad marka wixii aad cunto iska saarto weliba kariyaha khatar gelaya waa inaad socoto waa in jirku uu maaragtay dhiiggii wareegiisa iyo jirkii iyo wixii oo dhan maaragtay shaqadii ay isla socdaan laakiin haddaad cuntood seexato waa khalaas waa curyaamaysaa 12 cudur oo islahaynna way kugu dhacayaan marka hooyooyinkeenii hore waxay ahaayeen hooyooyinka ugu fiican waayo karti iyo hufnaan ayay adeegsan jireen wax walbana way qaban jireen wayna ka caafimaad badnaayeen inta maanta la yahay rag iyo dumarba waayo waa la shaqaysan jiray laakiin hadda waxaa ugu badan dadka mushaqaystayaasha ah hala shaqaysta meesha aad u maasan tahay shukri iyo nawaal idinka soo koobiya fadlan runtii waxaan dhihi lahaa shukri siday sheegtay markii dalka la joogay gabadha caawimo helayso waa umulaha fadhiisato hajiifata iyo dhaqaaqina la dhihi jiray balse halkani hawshaasi ma taalo maalintii ku xigta ballamo iyo howlo adduun baa iska jira gabdhaha dalka hadday joogaan iyagoo ciidankaas haysta waxaan dhihi lahaa ilmihiina u kaca guryihi hawsha hala shaqeeyo dhiigga iyo sirkalka iyo u shaqeeyaan aad baa maasan tahay anigana wallaahi warta waaba la sheegay laakiin waxaan dhihi lahaa socodka aad u fiican yahay maxaa yeelay ilmihii wuu soo degaya marka more active tahay ilmihii uurka wuu soo degaa positionkiisu imanaya marka caafimaad weyn waaye in active aa noqotid oo socotid oo maaragtay hawshaada ay badan tahay waxaa laga yaabaa inuu dhiig kar kugu dhicin sokorna kugu dhicin waxyaabaha xanuunka oo qalliinka kugu leexinayo inaad ka badbaadida macquula marka waxaan leeyahay active noqda hawsha guriga anti haddaa nadaafadiisa badisay كلينيك أبدس وحياباس هذه ما عرفت وفي سيدي سوماليا عمل مثل دتك جومان هذه وشقيان حتى نقولين شكلت بدشيو شقالة يا مركب والشقيست ويا حاري أو ما عرفت هلا الصعدة يا هذه هل حبر وأنا مقدرة أنت وسع حمد وسع حنن المهنة مركب ما عرفت gacantiin inaad wax ku siisataan ku fikir si kastoo ay shaqaale kugu joogto waayo ilmaha ay hoos la ogaadaa fiican ilmaha yaro babyga ah markii adoo haysatid tasiilaad far badan lagu adeegayo waa dalka markii la joogo taasaa ku badan ilmaha lama ogaan karo markii qof kale kuu keer garaynayo dareenkiisa xaaladiisa caafimaad haddii qandhahayso ma ogaan kartid qof kale aad ku halaynaysaa aad iyo aad baa mahadsantahay runtii gabagabadii baan soo gaadhnay iyo jawaabtii aniga laiga sugayey runtii maalinkii aan umulay dad baa waxaa dhacday
dad baa waxaa dhacday waxay arkeen naasir oo gashan dharkan maaragtay marka lagu jiro qolka qalliinka loo xidho dadka qofka qof la socdaa la soo weydiiyay aniga ka mid ah xamdiye soo maaha marqaatiga nool oo la yidhi naasir dharka noocaas u xidhnaaye ee loogu talagalay qaybta qalliinka aniga ma weydiinaa eri bal idinka weydiiya allayne dadkii markaa dad bay soo weydiiyey maqalliin baad ku dhashay marka waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa dumarka ay bay soo weydiiyaan ka war haddaan kula rag bay soo weydiiyey ii soo qoray maqalliin baad ku dhashay waagii hore ma garanaysaa su-aalahaas kala duwan kala baxsanaan jiray su-aalaha iyo sheekooyinka way noo kala baxsanaan jireen laakiin imika waa isku furan way isku furan yihiin haddadan rag bayna daawanaya dabcan oo dee youtube wax lasoo geliyay cid walbaa daawanaysa marka imika rag iyo dumarkii sidii loo lahaa sheekada hal la simo waa isku wada jiraaye anigu qalliin baan ku dhalay alxamdulilah programkuna kolled wuu sii dheeraanayaa laakiin xamdiye halkaan rabaa inaan ku daro qalliinka marka wadamadan kale la joogo dadka celebrity-ga caanka ah way saxiixaan way dalbadaan lacag badanaa lagu dhalaa oo $5,000 lacag u dhigantay ka badan laakiin halkaan ma dooran kartid wasiilaadka intaa leeg anaga ma heli karna $5,000 hadda maanta marka waa xaalad caafimaad darteed xaalad ma dooran karo ma dooran karo aniga reasonka laga qalay waxay ahayd 3 maalin baan foolinayay oo 1dii bisha ayaan galay dhakhtarka oo isniin ahayd 1dii bishii 10aad bay ahayd isniin bay ahayd 1dii waxaan umulay arbacadii 4 minute ayaa laygu qala marka way soo digi weyday inta waa soo digi weyday marka qisada insha Allah haddii aad u baahataan in ma garanaysaa inta kasii sheekeeyo sababihi ay ku timi waxaad soo dalban kartaan insha Allah laakiin intaasaan kusoo koobaya haddii ilaahay ka dhigo ilaahay kugu soo celiyo waan kaaga duceynaynaa insha Allah amiin aad aad mahadsan tihiin taqwo qalliin baan ku dhalay soo degitaanka ay soo digi weyday baana keenay dee dhakhaatiirtuna dabcan runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaayo way la dadaaleen in badan baan dhakhtarka ku jiray oo ay wax walba sameeyeen laakiin way suuragali weyday qadarta waxay noqotay in aan qalliin aakhirkii ku dhalay marka waa alxamdulilah dee kuwii dambe insha Allah ayaan rajaynaya inay hore ula yimaadaan aad iyo aad ba mahadsantihiin fadlan waxaan idka codsanayaa inaad 3 hablood baad subscribe saartaan channelladooda xagga hoosaan soo dhigi doonaa insha Allah khayr Allah idin siiyo waa mahadsantihiin